السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مروين يوم دليل واحد كسر دواتين مروحي الدلك يدوينها بدي كسر جاره بيكن عاو حاجة تلفزيون كاب قد بدأ وكتر كرن وركنا حاجة تلفزيون كنا وحاكم بدأ مدحنا جمهورية جيبوتي مدن إسماعيل عمر الجيرة منطقة شريعة دنبالة تعسيح أودري مدحنا ذلك الجيرة عبد العزيز بوتفليقة كديم قرحيدي كلا دونا يجلجلين جلادة الجيرة وضن كالجيريان golaha baarlamaanka Djibouti ayaa maanta ku yeeshay qolka shirarka guriga ummadda caasimada Djibouti afadhi gaar ah lagu soo dhaweeyay xogayaha guud ee midowga baarlamaanka wadamada Carabta Nuuruddin Abukhof aqoonsigiisa lagu dirsaday warbixinta ku aadan la dagaalanka cudurka sidaga ayaa lagu qabtay xarunta Inaba xagga wararka caalamka dadka iyo gudaganaa goobihii uu ku dhaftay duufaanku ee kamid ah jasiiradda Il Salamo ayaa si tartiib ugu soo noqonaya guryahoodii qarax yaasaka ka dhacay magaalada Baghdad ee caasimadda waddanka Iraq waxaana ku dhintay dad gaar ah iyo 12 qof oo kamid yihiin xildhibaano intaas warkii kooban haatna isagii oo dhan bismillaahi raxmaani raxiim warkii dalka madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti gudoomiyaha golaha xukuumadda mudan Ismaaciil Cumar Geele ayaa maalintii ashadii dhambaal tacsiya u diray madaxweynaha dalka Algeria عبد العزيز أبو تفليقة كذب قراحيدي كلا دونا يقلقلي مقالة الجيرة ودنك الجيرية مدحونا جمهورية Djibouti وحو دنبالكي سوكوري سيدا تم مدن مدحوني وحاد قلب دونتاه دنبالكالي وحان كحماري قراحيدي كلا دونا يقلقلي دالكاسي وحان يهين كوو ويقيا قرانمدا دالك الجيرية قراحيداني مدن مدحوني waxay ku soo badmeen xilli dalkaasi laga qaadanayo dibwiisii qaran waxyaha kala duwan mudane madaxweyne sidoo kale waxa dambaalkan tacsiga dib gaarsiisa eheladii iyo waliba qaraabadii dad ay kaga dhinteen qaraxyadaasi kala duwan waxaan sidoo kale caafimaad u rajaynaya dadka iyagu ku dhaawacmay qaraxyadaasi kala duwan shacbiga reer Djibouti xukuumadda iyo aniguba mar kale ayaan idinka tacseenadeena mudane madaxweyne رئيس الوزراء دالك دليتا محمد دليتا ayaa saaka xafiiskiisa ku qaabilay xogayaha guud ee midowga baarlamaanka wadamada Carabta Mr. Nuuruddin Abukhof Nuuruddin booqashadani ay tahay tii ugu horeysay ku yimid dalka jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa martiqaad ka helay baarlamaanka Djibouti kulanka dhexmaray ra'iisul wasaaraha iyo xogayaha guud ee midowga baarlamaanka wadamada Carabtana Mr. Nuuruddin waxa ku saleysan sidii loo soo xoojin lahaa xiriirka u dhaxeeya Djibouti iyo midowga baarlamaanka wadamada Carabta waxaana uu jooga qayb qaatay gudoomiyaha golaha baarlamaanka Djibouti Idris Arnaoud Ali habeenkii xalay ayaa mas'uulkan soo gaaray dalka waxaana uu ku joogi doonaa booqasho saaxiibtinimo oo qaban doonta muddo 3 maalmood waxaana uu la kulmi doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti gudoomiyaha golaha xukuumadda mudane Ismaaciil Cumar Geele golaha baarlamaanka Djibouti ayaa maanta fadhi ku yeeshay qolka shirarka guriga ummadda caasimada Djibouti fadhi gaar ah lagu soo dhaweeyay xogayaha guud ee midowga baarlamaanka wadamada Carabta Mr. Nuuruddin Abukhof golaha baarlamaanka Djibouti ayaa maanta fadhi ku yeeshay qolka shirarka guriga ummadda caasimada Djibouti fadhigaas oo ahaa fadhi gaar ah lagu soo dhaweeyay xogayaha guud ee midowga baarlamaanka wadamada Carabta Mr. Nuuruddin Abukhof oo booqasho saaxiibtinimo ku jooga dalka fadhigaasina waxa daadihinaya gudoomiyaha golaha baarlamaanka Djibouti Idris Arnaoud Ali waxaana ka soo qayb qaatay xubnaha baarlamaanka Djibouti gudoomiyaha golaha baarlamaanka Djibouti Idris Arnaoud Ali oo fadhigaasi ka jeediyay kelmad soo dhaweynaa oo uu talagalay xogayaha guudna waxa uu ku yiri waxaan halkan ka cadeynayaa in xildhibaanada Djibouti ay ku faraxsan yihiin kulankani waxaan hubaa in ay ku dadaali doonaan sidii ay soo xoojin lahaayeen xiriirka u dhaxeeya Djibouti iyo midowga baarlamaanka wadamada Carabta waxaan kale hubaa in maanta xiriir iyo waliba iskaashi wanaagsan oo u dhaxeeya baarlamaanka Djibouti iyo midowga baarlamaanka wadamada Carabta waxaan rabaa in midowga baarlamaanka wadamada Carabta ay xoojiyaan dadaaladooda ku wajahan dhinacyada kala duwan waa in aan ku dadaalnayo gudoomiyaha golaha baarlamaanka Djibouti Idris Arnaoud Ali sidii loo sii adkeyn lahaa cadaaladda xorriyadda dimuqraadiyadda midnimada qaran waa in aan isku duubnaana si aan uga guuleysano Israel ayaa wari gudoomiyaha golaha baarlamaanka Djibouti Idris Arnaoud Ali Israel oo cadaadis ku haysa shacbiga Falastiin waa in aan raadinaa sidii nabad lagu soo dabaali lahaa Iraq iyo waliba Soomaaliya ayaa ku soo gunaanaday kelmadiisii soo dhaweynta ugu fidiyay xogayaha guud ee
midowga baarlamanka wadamada carabeed Mr Nuruddin Abukoof oo saaka ka qayb qaatay fadhiga gaarka ee lagu soo dhaweeyay kana dhacayna qolka shirarka ee guriga ummadda ee caasimadda Djibouti oo la daadinayay gudoomiyaha golaha baarlamanka ee Djibouti Idris Arnaoud Ali kadibna waxaa fadhigaasi gaarka hadal ka jeediyay xogayaha guud ee midowga baarlamanka ee wadamada carabta Mr Nuruddin وحسنيري الذي تقوم به جمعيتكم الموقرة الجمعية الوطنية لجمهورية جيبوتي على الصعيد العربي وعلى الصعيد الدولي وذلك بالمشاركة النشيطة والفعالة في كل الفعاليات. xogayaha guud ee midowga baarlamanka ee wadamada carabta Mr Nuruddin waxa uu hadalkiisa ku bilaabay waa markii ugu horeysay ee aan soo booqdo dal aad u bilicsan run ahaantii nigama qarin karo wixii qalbigayga ku hayay waa midda hore waxaan jeclaaday in aan soo booqdo dal kan oo kale midda labaadna waxa uu ka turjumayaa xiriirka saaxiibtinimo ee u dhaxeeya Djibouti iyo weliba midowgani mudane gudoomiye waxaan kugu mahadnaqayaa adiga iyo xildhibaanadaba sida wanaagsan ee aad soo dhaweyseen waxaan si weyn aan ula socdaa waxqabadka xukuumadda Djibouti horumudka uu ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele dhinacyada kala duwan haday noqoto dhinaca dalka degmada iyo weliba dadweynaha sida la wada ogsoon yahay natiijooyin wanaagsan ayaa ka soo baxay shir madaxeedkii hogaamiyaasha wadamada carabta ee ka dhacay magaalada Riyaad ee boqortooyada Sacuudi Carabiya waxaana ka soo baxay qodobo ay ka mid yihiin sidii loo xasilin lahaa colaadda u dhaxaysa Israa'iil iyo weliba wadamada carabta iyo sidii Falastiin ay u noqon lahayd dawlad oo caasimad u noqoto Qudus kadib khudbadaasina waxa halkaas ay soo daarsadeen gudoomiyaha golaha baarlamanka Djibouti Idris Arnaoud Ali iyo xogayaha guud ee midowga baarlamanka ee wadamada carabta Mr Nuruddin hadiyado kala duwan kadibna waxa waraysi la yeeshay xogayaha guud ee midowga baarlamanka ee wadamada carabta Mr Nuruddin oo dhinacyo badan laga wareystay waxaana uu ku jawaabay زيارة أخوية Mr Nuruddin oo ah xogayaha guud ee midowga baarlamanka ee wadamada carabta waxa uu horeyntii sheegay waxaan ku faraxsanahay in maanta aan soo gaadhay dalka si weyn ayaa loo soo dhaweeyay waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha golaha baarlamanka ee Djibouti Idris Arnaoud Ali iyo weliba xildhibaanadiisa socdaalkayguna waxa uu qayb ka yahay xiriirka iyo weliba iskaashiga u dhaxeeya Djibouti iyo midowga baarlamanka ee wadamada carabta mar laga waraystay xogayaha guud ee midowga baarlamanka ee wadamada carabta doorka midowga baarlamanka wadamada carabta kaga jira xagga caalamka waxaana uu ku jawaabay doorka midowga baarlamanka kaga jira wadamada caalamka ka taagan arrimaha ka taagan caalamka sida Falastiin Iraq iyo weliba Soomaaliya waa door aad u muhiim ah Falastiin waxa uu tusaale ahaan waxaan ku dadaalnaa sidii la isugu soo dhaweyn lahaa Falastiiniyiinta iyo weliba Yuhuudda iyo sidii weliba ay dawlad xor u noqon lahaayeen Falastiiniyiintu dhinaca Iraqna waxa uu sheegay in midowga baarlamanka ku dadaalo sidii loo joojin lahaa qulquladaha iyo weliba qaraxyada kala duwan ee ka dhaca maalin walba dalka Iraq arrinka Soomaaliyana waxaan ku rajaynahay in natiijooyin wax ku ool ay ka soo baxaan shirka dib u heshiisiinta qaran ee lagu ballansan inuu ka dhaco bishaynu ku jirno 15keeda waxaan Soomaalida ugu baaqaynaa in ay ku dadaalaan sidii ay u heshiin lahayn isla markaana nabad ay uga dhaw lahaayeen wadankooda القمة العربي الأخير الذي أكد aqoon isweydaarsi lagu darsay warbixinta lagu qiimeeyo howlgallada kala duwan ee la dagaalanka cudurka VIH-SIDA ayaa lagu qabtay xarunta INAP waxaana ka qayb qaatay hiilaadka tumiyo kalkaleel caafimaad iyo umulisooyin iyo weliba shaqaalaha caafimaadka waxaana lagu qiimeeyay xaaladda iyo weliba la socodka cudurkani VIH-SIDA waxaana soo qaban qabay aqoon isweydaarsigaasi barnaamijka qaran la dagaalanka cudurka VIH-SIDA oo iskaashi la yeeshay ururka dunida ee caafimaadka waxaana lagu soo waramayaa in faafitaanka cudurkani uu hoos u dhacay tan iyo markii la maalgeliyo istaraatiijiyad qaran oo ku wajahan la dagaalanka cudurkaasi Dr Ibrahim oo ah agaasimaha mashruucan waxa uu sheegay in wasaaradda caafimaadka ay ku jirto dadaal laga hortagayo cudurkani qarniga ee VIH-SIDA oo faraq ku haya caalamka gaar ahaan wadamada Afrika. D'après les résultats, l'infection
tababar loo fidinay tababarayaasha ciyaarta tennis tab loo yaqaan xagga miiska ayaa lagu soo gabagabeeyay garoonka Alxaaji Xasan Guuleed Abtidoon tababarkaasina waxa soo qaban qaabaysay laanta Djibouti ee ciyaaraha tenniska oo iskaashi la yeelatay guddiga qaran ee Olombikada waxaana ka qayb qaatay dhalinyaro fara badan oo ka yimid gobolada dalka gudihiisa sida Cali Sabiix dakhil ubakh waxaana aqoontiisa ka bixinay khabiir ka socda laanta caalamiga ciyaaraha xagga tennis tabalka Monsieur Kaka Lawson munaasabadaasina waxa ka qayb qaatay wasiirka dhalinta isboortiga Mudane Xasan Faarax Miguel gudoomiyaha guddiga qaranka Olombikada Aisha Garad gudoomiyaha laanta Djibouti tennis tabalka iyo wali mas'uul sare ka socda wasaaradda dhalinta isboortiga wasiirka hadal gaaban ka jiray munaasabadaasina waxa uu sheegay inuu ku rajo yahay miraha ka soo baxay tababarkan waxaana uu sheegay inuu qayb ka yahay hawlaha lagu kobcinayo isboortiga Djibouti haweeneyda gudoomiyaha ka guddiga qaranka Olombikada Aisha Garad waxay mahadcelisay ka qayb qaatay tababarkaasi ugu dambeyntiina gudoomiyaha laanta Djibouti ee tennis tabalka waxa soo cadeeyay in miraha ka dhashay tababarkan uu ka turjumayo iskaashiga wanaagsan ee u dhaxeeya guddiga qaranka Olombikada Djibouti iyo laanta Djibouti ee xagga tennis tabalka waxaana munaasabadaasi lagu soo gabagabeeyay waraaqaha aqoonsiga loo qaybay ka qaybgalayaasha ka qayb qaatay tababarkaasi afar kamid ah ayaa la guddoonsiiyay shahaado ay aqoonsan tahay laanta caalamiga ee tennis tabalku xagga wararka caalamkana dadka iyo guddoomiyaha tuulooyinka ku dhaftay duufaanku ee ka tirsan jasiiradda Île Solomon ayaa si tartiib ah ugu soo noqonaya guryahoodii de Guizot entièrement rasé. dadka iyo guddoomiyaha tuulooyinka ku dhaftay duufaanku ee kamid ah jasiiradda Île Solomon ayaa si tartiib ah ugu soo noqonaya guryahoodii tuulada lagu magacaabo Titwani oo kamid ah tuulooyinka ku dhaftay duufaankaasi ayaa dadka halkaasi deganaa ay si tartiib ugu soo noqonayaan ninkan oo kamid ah dadka iyagu deganaa tuuladaasi waxa uu yiri waxba iima harin wax kaste waa ay burbureen gurigeedii iyo waliba hantidii aan lahana wada ku luntay meesha qaar kamid ah dadka iyagu deganaa ayaa iyagu haatee wali hadda aan ku soo noqon waxaana si xabsami ah isugu dayayaan in ay guryahooda soo noqdaan haweeneydaasi oo iyadu kamid ah dadka iyagu ka barakacay duufaankaas isla markaana ka caymaday waxayna laga wareystay waxa meeshan ay ka qabanayso waxana ay tiri waxaan raadinayaa anigu labiskii ilmahayga waxba ima harin gurigeedii waa u burburay waxaantiana kuma leeyihi balse wararku waxa ay sheegeen in dadka iyagu deganaa goobahaasi ay isku dayayaan in ay macaawino oo ka helaan mas'uuliyiinta xagga wararka caalamkana waxaa kamid ah qarax ayaa saaka ka dhacay bartamaha magaalada Baghdad waxaana qaraxaasi ku dhintay 10 qof 12 kalena ay ku dhaawacmeen ra'iisul wasaaraha Shiinaha ayaa booqasho ku jooga dalka Japan wararkaasi wararka isku bilaabay kana haynu la socono Nouvelle journée de chaos à Bagdad. qarax ayaa saaka ka dhacay bartamaha Baghdad ee caasimadda Iraq waxaana ku dhintay 10 qof in ka badan 12 kalena ay ku dhaawacmeen nin naftii hore ayaa la beegsaday baabuur laga soo bixiyay waxyaabaha qarxa goob kaabada xogaa kadibna qarax kale ayaa lala beegsaday rugta golaha baarlamaanka ee Iraaqiyiinta waxaana ku dhintay 3 qof oo labo ay kamid yihiin xildhibaanada baarlamaanka ee Iraq kuwa kalena way ku dhaawacmeen danjiraha Maroc ayaa gaaray golaha ammaanka ee qaramada midoobay si uu hordhigo qorshaha ku saleysan xaaladda Saharaha Occidentalka dadka iyagu degan goobtaasi ayaa iyagu dalbanaya in la siiyo madax banaani waxaana ay sheegayaan in muddo 30 sanadood ay ku jireen cadaadiska Morocco Une occupation contestée par le Front Polisario. Le Premier ministre chinois en visite au ra'iisul wasaaraha Shiinaha ayaa booqasho ku jooga dalka Japan waxaana lagu wadaa in mas'uulkaasi uu la kulmo mas'uuliyiinta wadanka Shiinaha wadanka Japan si ay isugu gaaraan heshiisyo kala duwan oo ku saleysan xagga iskaashiga iyo waliba tamarta waxaana lagu soo waramayaa in labadaasi dal ay muddo fara badan ba xiriir wanaagsan ayna lahayn Enfin libre, un ressortissant. wadanka Thailand boqorka wadankaasi ayaa afis u gudbiyay in uu dhashay wadanka Switzerland oo magacaabo Monsieur Olivier oo lagu xukumay 10 sanadood oo xariga kadib markii uu gacanta ku sawiray isagoo oo dilaya boqorkaasi qodobkaasi
ayaa daawadayaal ugu dambeeyay war wixii dalka iyo dadweynaha wadii ka soo gaaray habeenkani caawa xagga telefishinka inta dib u kulmi doono dhammaantiinba meel ka soo joogtaan ood naga daawanaysaan waxaan idinka tegnay nabadgelyo iyo ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh